السلام عليكم جايس ولكن ودني بحر ودني له سو دواada fadlan hadii aad ku cusubtahay channelkayga subscribe saar hadii aad hore u saartani mahadsanid magacaygu wadani baxar halka adiga daawanaysidna waa CM Vlogs am Films maate waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo qiso jacayl oo qof ii soo dhiibtay qofkaasna waa qof dumar ah waa gabar wallahi marka aad sheekada dhageysid qeyr badan ayaa ku gali doonto bal inta aan faafahinteeda galin aan sheekadu bilaawo idinku dhagaha iyo amaahiya sheekadu waxay u dhacaysaa sida tan gabadhu waxay tiri magacaygu waxa la yiraahdaa Xaawo Xasan Xuseen waxaan ku noolahay magaalada Garowe waxaan jeclaa wiilka wuxuu joogay magaalada Muqdisho waxaan wada sheekaysanay muddo aad u dheer maalmaha kamid ah waxa dhacday ayay tiri in uu idhahay igu imaw magaalada Muqdisho si aan u wadaagno nolol farxad leh kadib waxaan ku yiri anigu ma imaan karo magaalo aan aqoonin balse adigu isoo doono reerkaygu ay ka siinayaan kadib meesha doontid waan ku raacayaa sababtoo ah adduunka xilligan la joogo isma aamini karo ayay tiri markaas ayuu wuxuu iga dhaadhacshay muddo badan ayuu wuxuu iga dhaadhicinayay inaan u tago meesha uu joogo sababtoo ah wuxuu yiri hadii aan isku dayo inaan ku soo doonto ma haysto lacag igu filan reerkayguna igama yeelayaan waayo waxaan dhigtaa ayuu yiri jaamacad si uu iga sheekay jiray kadib waxa dhacday inaan fikirkayga maskaxdeeda ka dhaadhiciyo inaan u tago markii awlaadu qalad galaan waxa qaladkooda baabi'i kara ama ka heshii kara waalidiinta ayaan isiri kadibna waxaan go'aansaday inaan aado waliba aan la qaybsado farxadda oo sheegayo aniguna aan raadinay muddo badan markaas ayaan u soo dhaqaaqay dhankiisa wuxuu ii soo diray lacag oo gaari raac ah waliba waxaan ka dhaadhiciyay inuu isaaro diyaarad si aan dhaqso ugu imaado wuxuuna igu yiri lacag diyaarad aan kugu saaro ma haysto balse baawur soo raac ay igu yiri waxa dhacday gaariga inta soo saarna ayaa wadadii waxaan ugu qabsadeen tuugo balse nasiib xumo way kufsadeen tuugadaasi iyo gabdho badan gaariga saarna ayay kufsadeen kadib waxa dhacday gaarigii inuu si toos ah u imaado magaalada Muqdisho ana ko dhibaatadaasi rafaadkaasi qabnaa markii aan imaaday magaalada Muqdisho ayuu igu yimid meeshii aan gaariga uga dagay kadib wuxuu ii kaxeeyay xaafadda anigoo iga muuqata rafaad iyo murugo inkastoo aan wadada aan ku soo qabaysanay oo aan iskaga soo nadiifinay wasaqda iyo dhibaatada loo geystay kadib markaan xaafadda imaaday ayaan uga sheekeeyay sheekadii balse wiilkii uu aamini waayay wuxuu nagu yiri adiga ayaa saqajaamad ah adigaana wax walba sameeyay ee aniga been ha ii sheegin wadadan xukuma marsiyoonin waxaan isku dayay inaan raadiyo darawalkii iyo dadkii gaariga saarnaa marqaatiga noo ahaa balse waa aan waayay markiina kuma aan fikiraynin inuu igu inkiri doono waxyaabahaasi kadib wuxuu isku dayay inuu i gacan seero iyo nasaaro dibadda oo farax iga qaadiyo magaalada Muqdisho igu dhaxdaayo balse waan ooyay waan balbariyay si kastaan ula hadlay wuu iga diiday wuxuu yiri oohinteeda markay badatay jaanis ayaan ku siinayaa 3 maalmood kuraaso dadkaaga igana tag gurigayga fadlan idhaaf ayuu yiri waxaan isku dayay inaan soo jiito 3 maalmood aan la joogo oo aan dareensiiyo dhibaatada aniga ay haysataa balse wuxuu isku dayay inuu uusan iga yeelin marnaba dhankaygu ma soo sanjalecin waayo uu iga saaray qalbigiisa niyadiisana uu iga saaray wuxuu isku dayay maalintii ugu dambeysay aan gurigiisa ka tagi lahaa inuu isku dayo waxyaabihii dhibaatada ahaa ay la soo geystay mid la mid ah inuu ii geysto balse waan iska bariyay wuuna iga leexday wuuna iska keedaayay kadib waan soo dhaqaaqay oo waxaan familkayga ku wargeliyay inaan joogo magaalada Muqdisho waxaana la ii soo diray wiil magaalada qaraabo ay ku yihiin familkayga ay is yaqaanaan wiilka ayaa gurigiisa igay kadibna wuxuu ii soo jaray tigid wuxuuna keenay magaaladeedii Garowe ay igu soo celiyay familkayga ayaan isku dayay inaan sheekada uga sheekeeyo balse sheekadii waxa ka weynaatay sababtaan u baxay iyo meeshaas sababtaan u aaday markaan u sheegay sheekadaasi way i cafiyeen balse waxa murug ii ah oo dhibaato ii ah mustaqbalkaygu baaba'ay isna aan li ogeyn naxariisna aan ku haysanin mustaqbalkaygu baaba'ay kadib hooyo iyo aab waxaan isku dayay inaan u sheego sheekadaasi oo aan la wadaago balse waa ii suurtagal weysay haduma aqaan waxaan sameeyo waxaan taaganahay meel xun waayo mustaqbalkaygu baaba'ay aabiyo hooyo waxay qorsheenayaan inay nin igu daraan ninkaasi qaabkan ula hortagi lahaa ayaan gari la'ahay balse waxaan niga codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay igu soo caawiyaan talo fiican oo i qancisa si aan waalidkayga ula wadaago dhibaatadan sheekadu halkaas ayay ku egtahay wadna maasantiin wallahi sheekada qiiradeeda aad ayay u xun tahay sheekada aad ayay u dheertahay balse inta muhiimka ah ayaan ka soo qaatay waxay gabadhaas niga codsanaysaa inaad la wadaagtaan talo wanaagsan si ay ula wadaagto familkeeda aniga waxaan dhihi lahaa
qalad uu dhacaa dhibaatana waa la geystaa dhibaatadaas adiga ma aada geysan ee waa lagu geystay hooyo aabo waad u sheegi kartaa waxbana kuma dhexeeyaan inay kula qabsadaan maahane hooyo aabo ma ahan cadowgaaga mana ahan dad shisheeye ah mana ahan dad sir laga qarsado hooyo aabo waa dadka ku dhalay kusoo koriyey fadlan ha ka cabsan ee la wadaag hilib adigoo si xaqiiqda ka hadlaya beentana ka dhowr hooyo aabo dareemi karaan dhibaatadaada laakiinse dadka kalama dareemi karaan ha isku day inaad ka cabsatid hooyo aabo waa taladeeda daawashada fiidiyoga daawatay waad ku maasan tahay haddii aad sheekadan ka heshay like haddii aad ka helin dislike assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu